qof niyaddaada ma ku soo dhacay muddo fog kuugu dambaysay kadibna ma ku soo wacay wax yar kadib adinkoo qof ka hadlaaya ma idinku soo baxay kadibna ma adeegsateen kelmadda caanka dhegta isqaba haddaan kaa hadlaynay waxa uu qofku go'aansada samayntooda muxuu u xaqiijiyaa ugu dambayn waa maxay qaanuunka soo jiidashada siday arrimahan u dhacaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa cumar maanta waxaan ka hadlaynaa waxa lagu magacaabo qaanuunka soo jiidashada waxaa lagu tilmaamaa sirta siraha falaasifadu waxay ku magacaabaan aabbaha qawaaniinta qaanuunka soo jiidashada carabi ahaan qaanuunuljadb englishna law of attraction waxay leeyihiin wax walba waad xaqiijin kartaa adduunkan tusaalooyinka ayaad si fiican ugu fahmi doontaa qaanuunkan wuxuu leeyahay qofka waxa uu niyadda gashada inuu sameeyo hadduu rabo yuusan dadaal badan bixinne ugu dambayn wuu gaaraa wuuna xaqiijiyaa arrinkaas duruufaha adduunka iyo asbaab badan ayaa kuu sii jiidi in aad gaarta xaqiijinta waxaad rabto tusaale haddii aad hadda muuqaalkan ka daawanayso yurub ama maraykan tegitaanka aad dhulkaas tagtay ma ahan wax habeen hadda kugu soo dhacay kadibna subaxdii aad ku dhaqaaqday aaditaanka dalkaas waa wax muddo maskaxdaada ku soo jiray waxaad ku fikri jirtay inaad jarmalka tagto ama swiden adigoo dalkii joogo haddaba asbaabta oo dhan waxay kuu jiidi in aad jarmal tagto ama waddankaad hadda joogto asbaabtaas waxay noqon kartaa in adigoo dalkii joogo si kedisa gacantaada ugu soo dhacdo buu ka hadlaya jarmalka ama aad maqasho mawduuc ku saabsan waddankaad rabta inaad aaddo kadibna kugu sii riix kuguna sii dhiirigeliyo tegitaanka waddankaas cajiib waa arrin la yaab leh sidaas darteed waxay leeyihiin si aad u xaqiijiso waxaad rabto marka hore niyaddaada geli xaqiijinta arrinkaas in aad qorto ujeedkeeda waa arrin muhiima dhammaan hogaamiyeyaasha caalamka kuwii hore iyo kuwa hadda markaad taariikhdooda akhriso waxaad arkaysaa in fikradda madaxtinimada ay ku soo dhacday ayagoo yaryar kadibna fikrad ahaan ay u noolaayeen in ay madax noqdaan mustaqbalka donald trump madaxweynaha maraykanka ee hadda 1988 waraysi lala yeeshay wuxuu ku sheegay in waddamada khaliijka ay balaayiin lacaga haystaan uu rajaynayeen inuu lacagtaas ka soo qaado xilligaas wuxuu ahaa nin shirinta dumarka lagu yaqaano keliya oo aan akhlaaq siyaasadeed lahayn nin qaniya oo faasiqa oo aanan akhlaaq hogaamiye lahayn cidna isma lahayn maalin ayuu madaxweyne noqon doonaa markii uu Hillary Clinton la tartamayay dadka adduunka oo dhan waxay qiyaasayeen in 99% Clinton soo bixi doonto guulaysan doontana laakiin arrinkaas ma dhicin haddaba ujeedkeena ka hadalka Trump waa soo xaraynta malaayiin lacaga oo ka imaaday khaliijka oo ahayd ujeedkiisu ku dhowaad 30 sano ka hor wax yar aan daawanno waraysi 1988 lala yeeshay Donald Trump Kuwait, they live like kings. The poorest person in Kuwait, they live like kings. And yet they're not paying. We make it possible for them to sell their oil. Why aren't they paying us 25% of what they're making? It's a joke. markuu ka soo laabtay khaliijka wuxuu twitterkiisa ku soo qoray in uu soo xareeyay balaayiin lacaga taasoo ah xaqiijinta ujeedkiisii 30 sano ka hor qaanuunkan wuxuu leeyahay waxa aad noloshaada xaqiijiso waa waxa maskaxdaada ka guuxo kuna fikirto waqtigaada oo dhan ilaahay bini'aadamka wuxuu siiyey awoodo badan oo wax kasta uu ku xaqiijin karo waxaa kugu filan fahanka qaanuunkan xadiithul qudsi ah in ilaahay uu yahay addoonkiisa wax uu ka fisho haddii aad ilaahay mar walba ka filata khayr iyo wanaag waad heli haddii aad ka filato wax xun iyo shar asbaab shar kugu dhex riddo ayaad ku duldhici noloshaadana waxay ku wareegaan mareegta sharta iyo kufitaanka niyaddaada ma ku soo dhacay qof kadibna ma ku soo wacay wax yar kadib ma isweydiisay hebel talow xaguu ku dambeeyey qof muddo fog kuugu dambaysay kadibna war ma ka heshay wax yar kadib sidoo kale inkastoo arrimahaasi la hadda culimmada ay la'yihiin sababta keenayso in laba qof oo kala fog dhinaca maskaxda ku wada xidhiiraan haddana waxaa lagu magacaabaa qaanuunka wadahadalka maskaxda iyo sidoo kale qaanuunka soo jiidashada cumar ibnulkhataab radiallaahu canhu madiina isagoo jooga khudbaynayana ayuu si kadisaa u yidhi yaa saariya aljabal iska ilaali dhinaca buurta ciidanka uu la hadlayo ama ninka lagu magacaabo saariya binu xisn bil intii loo socdo ayuu u jiray dadkii masjidka ayaa khudbadii kadib weydiiyey sababtuu hadalkaas u yidhi wuxuu ku jawaabay alfaaruuq waxaa niyaddeeda ku soo dhacay in muslimiinta la riixay ama dhinac buurta looga imaaday kadib soo laabashada saariya wuxuu sheegay in uu maqlay ama niyaddiisa ka guuxday hadalka ah aljabal dhallinyarada aan saaxiibadan ayaa waxaa ka mid ahaa wiil mar kasta ku fikiri jiray in uu u hijroodo maraykan ama kanada labadaas waddan ayuu ku hamin jiray in uu ku noolaado 24 saac ayay maskaxdiisa ku taagnaan jirtay taasoo ah in uu maalinba maalinta ka dambaysa duruufaha iyo asbaabta u jiidayeen dhinaca tegidda dhulkaas
sidoo kale waxaa jiray wiil saaxiibada ka mida laakiin hal mar niyaddiisa ku soo dhacday inuu Maraykan aado waxayna israaceen wiilka aan sheegnay ee muddada dheer ku fikirayay safarka. wiilashu safar dheer oo qaaradda Latin America ayay mareen ilaa ay ka gaareen xuduudka Maraykanka iyo Mexico, kadibna waa la qabtay. ku dhowaad sanad iyo bar ayay xirnaayeen. haddaba labadaas wiil midkii muddada dheer ku fikirayay inuu baxo waa la sii daayey, wuxuuna u sii gudbay Canada oo uu hadda ku nool yahay. yarkii kale sida kadiska ku baxay Muqdisho ayaa lagu celiyey. arrinkan 2 sano ee la soo dhaafay ayuu dhacay. wiilka dambe waxaan hubaa inuu u baxay, waa la baxay adna bax, halka kan hore uu arrinku u ahaa ujeed uu u nool yahay inuu xaqiijiyo, wuuna gaaray. waxaan u rajaynaynaa nolol wanaagsan. waxay leeyihiin haddii aad ku fikiraysa dhisidda guri tusaale ahaan, yaadan haysaninba lacag aad ku dhisto. haddii fikraddaas guri dhisidda kuu tahay wax aad ku taamayso, ugu dambayn waad gaaray arrinkaas. dhammaan ragga milyaneerada adduunka maanta in ay xaqiijiyeen arrinkaas waa qiso ay u soo noolaayeen, xaqiijinteeda wayna gaareen. micnaha guud ee qaanuunkan waa in dadku ay ka hadlaan waxa ay jecel yihiin una jiitamaan dhinaca waxaas. laakiin waxaa jira dad aanba aqoonin waxa ay jecel yihiin ama u jiitamayaan dhinaciisa. ka waran hadda haddii ilaahay malag kuu soo diro ku weydiiyana sheega 3 wax oo aan kuu xaqiijiyo, waxaadna haysataa 5 daqiiqo. waxaa macquula in aad garan weydo waxaad sheegto sababtoo ah maba lihid qorshe iyo wax kuu degsan oo aad rabta gaaridooda. ugu dambayn waa in nolosheenna aan ka dhignaa mid micno leh, in ay jiraan ujeeddooyin aan rabna in aan gaarno, xaqiijinnana mustaqbalka. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.